Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Caadifada ama dareenka laablakaca waa waxa keliya ee dadka kala sooca. Sidoo kale waa waxa nagu hagaa inaan gaarno go'aamo maaliyadeed oo qaldan. Tusaale ahaan, markaad go'aansato inaad soo iibsato telefoon cusub adoo ku salaynayo dareen laablakaca sida hebel ayaa wata telefoonkan camal, go'aankaas wuxuu noqon karaa derbi u dhexeeya adiga iyo hadafkaaga mustaqbalka inaad noqoto qof hodan ah. Hadalkani waa xaqiiqo boqolkiiba boqol ah. Dadka badankiisa waxay ka sheegtaan dhibaatooyin maaliyadeed ama lacag yari, sababtoo ah ma awoodaan inay xakameeyaan dareenkooda wax soo iibsashada. Waxayna inta badan qaataan go'aamo qaldan iyagoo raacaya naftooda, sida inay soo iibsadaan waxay ayaga u baahneen keliya dadka kale ay ku arkeen. Tusaale ahaan, in shaar cusub la keeno suuqa, kadibna dhalinyarta oo dhan ay soo wada gataan, sidaasna adiga aad shaarkaas ku soo gadato, adigoo keliya ay kaa tahay hebel ayaa soo gatay, ama cabsi aad ka qabto in moodeelka suuqa uu ka baxo. Waxaa laga yaabaa shaarkaas inuu dooqaaga ahayn, ama 10 shaar kale inay guriga kuu taalo. Arrinkaas inta badan waxaa ka faa'iidaysta shirkadaha wax soo saara, waxayna mar waliba isku dayaan lacagaha aad muddo bilaa soo shaqaynaysay inay kaaga qaataan daqiiqado gudahooda, ayagoo isticmaalaya farsamooyinka ah moodeelkan mar kale ma soo noqonayo, waxaan sameynay qiimo dhimis boqolkiiba intaas ah, iyo waxyaabo noocaas ah. Wax badan oo arrintan ku saabsan waxaa ka hadlay qoraaga buuggan aan maanta ka hadlayno, Morgan Housel, buuggiisa The Psychology of Money, Psychologiyatul Maal. Buuggan markii ugu horreysay la daabaco waxay ahayd sanadkii 2020, wuxuuna si dhaqso leh ku noqday mid ka mid ah buugaagta ka hadasha dhaqaalaha kuwa ugu iibka badan. Qoraaga buuggan wuxuu buuggiisa ku biloobay isbarbardhigga bulshada ayaa ah mid ka mid ah dhibka ugu weyn haysta shakhsi walba maanta. Tusaale, waxaad haysataa $1, waxaad fiirsay Instagram-ka ama Facebook-ga, waxaad ku aragtay sawir qaar ka mid ah asxaabtaada ay soo dhigeen ayagoo wax ka cunaya maqaayad cusub oo hadda la furay. Sidoo kale dadka intiisa badanna ay tegayaan ay wax ka soo cunayaan. Qof walibuu tagana maqaayadda cuntada ammaanaya, sawirsiga soo qaadaya. Adiga maskaxdaada su'aal ayaa ku soo dhacaysa. Su'aashaas oo ah, dadka oo dhan maqaayaddaas way tegeen, aniga dadka maxaa iga reebay? Kadibna inaad maqaayaddii sidii aad ku tagto, cuntadii dadka ay dalbadeen aad dalbato, sawir aad isaga soo qaado adigoo maqaayaddii dhex fadhiya, cuntadiina cunaya. Meeshaasna ay kaaga baxdo ku dhowaad lacag $50 ah. Maalmo kadib waxaad aragtay asxaabtaada oo ka hadlaya in suuqa la keenay PlayStation game cusub. Mid walba asxaabtaada ka mid ahna PlayStation-kii uu soo gatay. Adigana maskaxdaada inay ku soo dhacdo, aniga maxaa iga reebay asxaabtayda sidii inaad ku soo gadato PlayStation-kii aadna bixiso lacag dhan $250. Waxaa suurtagal ah in PlayStation-ka aadan ka helin, laakiin adiga muhiimadaada waxay ahayd dadka kale ayaa soo gatay, anigana waa inaan soo gataa. Basketball, inaad isdhaahdo dhalinyarta xaafadoo dhan waxay ciyaaraan basketball, anigana waa inaan tijaabiyaa. Kadibna aad soo gadato kabo iyo maaliyad isku joog ah si aad ugu ciyaarto basketballka. Maalin ama 2 maalin kadibna aad ka caajisto, aadna dhahdo basketballka waan tijaabiyey, waxaan arkay inaan ku fiicnayn, waana iska daayay. Maxaa dhib ku jira? Dhibka ku jira wuxuu yahay inaad khasaartay $100 ee aad ku soo gadatay isku jooggii maaliyadda ee aad ugu talagashay inaad ku ciyaarto basketballka. Muddo kadib inaad Facebook ku aragto alaab ay dadka oo dhan soo gateen oo markaas lagu kacsan yahay, ha ahaato funaanado, kabo, alaab guriga la dhigto iyo wixii la midka ah. Adigana aad u soo gadato dadka ayaa gadanayo oo keliya, meeshaasna ay kaaga baxdo lacag dhan $300. haddana aadan isticmaalin alaabtii aad soo gadatay oo gurigaas ka dhigto. Sidoo kale labis ay dhalinyarta soo gateen, sidoo kale maaliyadaha kooxaha kubadda ciyaara, adigoo u soo gadanaya keliya hebel ayaa soo gatay oo aadan u baahnayn, kuwa badanna ay armaajada kugu xariisan yihiin, iyo waxyaabo kaloo badan. Inaad u soo gadato keliya dadka kale ayaa soo gatay, ma ahan inaad adiga rabtay, ma ahan inaad adiga jeclaatay, keliya waxaad u soo gadatay dadka kale ayaa soo gatay. Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee kugu qasbaya inaad soo gadato waxyaabo aadan rabin. Waxaa jirta sabab kale oo iyadana kugu qasbaysa inaad si degdeg ah ku soo gadato wax aadan rabin, sida in lagugu qanciyo agab gaar ah ama alaab gaar ah inay ku xalinayaan dhibaatooyin adiga ku haysata ama boos adiga kaa banan ku buuxinayaan. Waxayna shirkadaas alaabtaas soo saartay kugu qancinaysaa inay adiga xal kuu tahay alaabtan. Sidaasna adiga aad ku dalbato alaabtaas, muddo kadibna waxaad ogaanaysaa inaad u baahnayn alaabtaas oo dhan, lacagtaadana inaad si maalayacni isaga bixisay. Ka fikir marka yaa khasaaray yaana faa'iiday. Dabcan adigaa khasaaray oo lacagtii aad ku soo rafaaday si sahlan kaaga baxday. Shirkadda alaabta soo saartay ayaana faa'iiday oo lacagtaad bil soo shaqaynaysay gacanta ku dhigtay, weliba si dhib la'aan ah. Marka uu caqliga ku fikirayo bulshada ayaa sidaan samaysay, anigana waa inaan sameeyaa. Arrintaas adiga iyo dhibaato kugu tahay,
maxaa yeelay lacagtaada ayaad meel cidla ah ku bixinaysaa. qoraaga buuggan wuxuu buuggiisa ku dhahay, dadka waxay la cajabaan waxa adiga aad haysato ee maahan adiga shakhsiyaddaada. micnaha haddaad kaba wanaagsan soo gadato kadibna aad xidhato, dadka waxay la cajabaan kabahaas ee adiga ma ahan. sidaas darteeda waa inaad kala saartaa waxa adiga si shakhsiyan qiimo kuugu yeelayo iyo waxa si beenbeen ah qiimo kuugu yeelayo. qiimaha dhabta ahna siiya waxaad adiga xidhan tahay. adiga qiimahaaga dhabta ah waa shakhsiyaddaada, akhlaaqdaada, dhaqankaaga wanaagsan, runtaada iyo guulaha aad gaartay. kuwani ayaa ah waxa adiga kaa dhigaya shakhsi qiimo badan, ee ma ahan waxa qiimaha kuu yeelaya alaab aad adiga suuqa ka soo iibsatay. taas micnaheeda ma ahan inaadan wax soo gadan, waa qasab inaad wax soo gadato. maxaa yeelay shakhsiga nool wuxuu u baahan yahay wuxuu ku noolaado. laakiin inta aadan soo gadan ka hor si fiican ugu fikir. waxaad soo gadanayso ma u baahan tahay mise iska soo gado ayay kaa tahay oo dadka kale ayaa soo gateen. haddii aad si dhaba ugu baahan tahay waa qasab inaad soo gadato. laakiin haddii aadan u baahnayn, waxaa wanaagsan inaadan soo gadan. mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee uu soo jeediyey qoraaga buugga ayaa ah inaan xadidno kharashaadka aan bixinayno. micnaha inaan lahaano xad na celiya oo aan dhaafi karin marnaba. haddii aan dhaafnan ay noqonayso inaan lacageena khasaarinayno, dadka kalena ay ka faa'iidayaan lacagahaas. tusaale, dakhliga bishii ku soo gala 70% waxaad ka dhigtaa waxyaabaha muhiimka ah sida kirada guriga, korontada, biyaha, iskuulka, caafimaadka iyo wixii kaloo daruuri ah. 20% waxaad meel u dhigtaa maalgashi. hana isku day inaad wax ka bixiso. 10% ka dhig waxyaabaha baashaalka ah ama waxyaabaha aan muhiimka ahayn. hana isku dayin inaad ka gudubto xadkaas. haddii aad intaas dhaaftana waxaad ogaataa inay lacagtaada meel cidlaa kaaga baxayso. nidaamkan wuxuu kaa caawin karaa inaad iska ilaaliso deymaha oo aadan qaadan wax dayn ah, wuxuuna kuu sahlayaa inaad had iyo jeer haysato wax kugu filan si aad u maalgashato mustaqbalka. maalgelinta waa habka ugu fiican ee aad ugu faa'iidaysan karto lacagahaaga. tusaale ahaan, haddii aad maalgashato $100 bishii adoo gadanayo saami ganacsi, saamigaas aad gadatayna sannadka aad ka helayso 6%, 30 sano kadib waxaad haysataa lacag gaaraysa $97,491. waxaa laga yaabaa inaad isdhahdo 30 sano kadib waa wakhti aad u dheer. sax, waa wakhti dheer, laakiin ku xisaabtan waxaad bixinayso waa $100 oo keliya. haddaad hadda jirto 25 sano, marka aad gaarto 55 sano, haddii rabbi cimrigaas oo ku siiyo waxaad helaysaa $97,491. ka baran haddii aad 200 aad maalgashato, waxaad helaysaa $194,982. waa lacag aad u fara badan runtii. mar waliba oo lacagta aad maalgashanayso sii badato, waa mar waliba faa'iidadaad qaadanayso ay sii badato. meeqo shakhsi ayaa maanta ah 55 jir, welina ah sidii ay 30 sano ka hor ahaayeen, waxa lacagnaan haysan. hadday fursadda noocaas ah samayn lahaayeen, maanta waxay haysan lahayn lacago aad u fara badan. midda ku tasho inaad lacag maalgashato oo saami aad ku gadato iyo inaad lacag kaydsato, farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya. haddii aad bil weliba $100 kaydiso, 30 sano kadib waxaad haysataa $36,000. laakiin haddii aad $100 maalgashato oo aad saami ku gadato, 30 sano kadib waxaad helaysaa $97,491. runtii farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya. marka mar weliba waxaa fiican inaad saami aad iibsato. arrintaasna waxay u baahan tahay inaad fahanto sida wax loo maalgashto iyo saamiga la gadanayo waxa uu yahay iyo sida saamiga uu u kordho. inaad lacag yar maalgashi ku samaysato, dakhliga maanta ku soo gelaya wax saameyn ah kuma yeelanayso, mustaqbalkana aad ayay ku anfacaysaa. isku day lacagtaada inay kuu shaqayso adigoo hurda. arrintaasna waxay kugu suurtogeli kartaa inaad lacagtaada maalgashato. tusaale, lacag yar aruuri, dhul qiimo yar jooga ku gado, biri qiimaha dhulka ayaa kuu laba jibaarmaya, iyo waxyaabaha aad is leedahay qiimahooda mustaqbal kor ayay u kici karaan, sida inaad maalgashato cryptocurrency-ga, bitcoin-ka ama koonisada la midka ah. laakiin marka hore waa inaad barataa waxa uu yahay bitcoin-ka iyo sida loo maalgashto inta aadan maalgashan. intaasi waa tusaale. maalgelinta waxay kaa caawinaysaa inaad gaarto xasilooni maaliyadeed mustaqbalka iyo inaad ku noolaato nolol wanaagsan. fiiro gaar ah, hantida waxaa lagu keenaa fikir, faqrigana waxaa keena fikir. hantida waxaa lagu kasbadaa caadooyin, faqrigana waxaa keena caadooyin. qaybta ugu dambaysa ee buuggan, qoraaga wuxuu ugu hadlay marka aad lacag fiican aruursato kadibna aad u dhaqanto sidii ay u dhaqmaan dadka faqiirka ah, lacagtaasi aad aruurisay meel cidlaha ayay kaaga bixi doontaa adigoo wax faa'iidaha ka samayn.
micnaha lacagtaad aruurisay haddii aadan maalgashi ku samayn sida maalin walba iyada aad u isticmaalayso way kaa dhammaan doontaa. Tusaale haddaan u soo qaadano ciyaartooyda kubadda cagta ciyaarta, lacago fara badan ayay qaataan intay kubadda ciyaaraan. Kuwa badan markay kubadda ka fadhiistaan waxay gaaraan fakhriga meesha ugu dambaysay. Sida haddaan tusaale u soo qaadano Ronaldinho, inta kubadda uu ciyaarayay wuxuu helay lacago aad u badan. Marka uu kubadda ka fadhiistay waa tii la xiray kadibna uu waayay lacag uu isku damiinto. Middaasi sababteeda waxaa iska leh wuxuu ku dhaqmi jiray caadooyinka ay fuqarada ku dhaqmaan. Lacag weliba soo gashana uu qarash garin jiray asagoo aan mustaqbalka ka fikirin. Sidaas darteeda haddii ay fursad ku soo marto ama nasiibkaagu ku saacido oo aad lacago fiican hesho, fursaddaas ha iskaga ciyaarin ee samey maalgashi si mustaqbalkaad ugu faa'iido. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan waxun ka faa'iiday. Haddii aad hore noola joogtay videoga like saar, haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe gareey, videoga like saar, sina share gareey si asxaab kale ugu faa'iidaystaan. Assalaamu calaykum.